مسؤولين كترسان حكومة الصوماليلاند هو أي كم هايان وزير كحجين كوزارة أرمها دبدة يسكاشك عالمي la taliyaha madaxweynaha Somaliland iyo duqa magaalada Wajaale mudane Muxyidiin Cabdi ayaa magaala xuduudeeda Tog Wajaale ee Somaliland kaga hortagay isla markaasna ku soo dhaweeyay wafdi ka socda dawladda deegaanka Soomaalida oo ka koobnaa wasiirro iyo mas'uuliyiin kale wafdiga oo ujeedadiisu tahay in ay magaalada Hargeysa kaga qayb galaan aaska qaran ee Isniinta subaxnimada loogu sameeyo magaalada Hargeysa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa ay mas'uuliyiinta Somaliland uga mahad celiyeen soo dhaweynta diiran ee loo sameeyay waxaana halkaasi hadal ka jeediyay isla markaasna wafdiga soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Marwarooda Jaamac Cilmi iyo la taliyaha madaxweynaha Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde runtii wafdiga qiimaha badan ee wasiirada iyo afhayeenka baarlamaanka iyo madaxda kale ee qiimaha badan leh ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa runtii waxay ka turjumaysaa siyaaradani inaynu nahay waslad kaliya iyo dad wax soo ah oo walaalo ah oo muxuu ahaayay dhibaatada iyo dheeftuba wada dareemaya runtii waxay naga wada baxay haliyay qiimo badan Ethiopia muddo dheer joogay annagu waxaanu nahaa we are the leech of Ethiopia Somaliland markay tahay waxaanu nahaa waxa weeyaan Ethiopia dhashay waayo halkankii dheeraano galay markii aanu islayn 60kii soo celiyay xorriyadii meesha aanu ku tiirsanay waxay ahayd Ethiopia muxuu ahaayay Axmed Maxamed Siilaanyo madaxweynaha horena wuxuu ahaa ragii halka ka bilaabay ee idin la bilaabay buu ahaa gogasha wanaagsan u dhigteen buu ahaa annagoo tii hore halkan idinka mahad celinayna tanna maanta waxaanu idinka mahad celinaynaa ina nala qaybsanaysaan tacsida iyo tiraanyada aad iyo aad baan inkastoo imika halkii dhinacii Itoobiya aynu joogno laakiin markaynu xuduudda ka taloono aad baan idinku soo dhaweynaynaa dalkiinii labaad muxuu ahaayay waxaanu leenahay soo dhawaada gacmo furan bay idinku soo dhaweynayaan dadka reer Somaliland waa shakhsiga igu soo aan isaga daraadii igu soo biiray siyaasadda Somaliland sidoo markii ugu horeysan la kulmay sidoo kulul soo dhaweey sidoo xaaladaha Soomaaliya iga sheekeeyay waxuu ahaa Allah u naxariistay qof walba oo bilaadan ah meeshuu taagan yahay kala jaan qaadi karaya kuna dhiirin kale wuxuu doonayo marka waxa naga baxay Allah u naxariistay taa waa la wada huran yahay jabhad qof Somaliland iyo Soomaaliya dhan wax badan soo qabtay ilaa intii Soomaalidu jirtay uu isaguna noolaa ilaa u naxariisto wanu in ka mahad celinayna inaad tacsida tiirayada naga soo qayb galisaan aaskiisana naga soo qayb galisaan waxaan anagu qiimeynayno maalmahan oo kale oo maalmaha walaaltinimadu muuqato marka aad baan ka mahad celinayna inaad noogu timaadeen aad naga qayb qaadanaysaan insha Allah aaska marxuun Axmed Maxamed Siilaanyo ilaahu naxariista ilaahay jannada firdawsana ku deeqo geesta kalena Marwa Ayaal Cabdi afhayeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida oo wafdiga u hadashay ayaa mas'uuliyiinta Somaliland ee soo dhaweeyay uga mahad celisay soo dhaweyntan waxaana ay sheegtay in madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar uu wafdigan u soo diray si ay murugada iyo tiraanyada aaska madaxweynihii hore ula qaybsadaan bulshada Somaliland wafdigan aan hogaaminayo waxa soo diray madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida isagana yiri muxuu ahaayay wafdiga inta hogaamiso anigu isaguna uu iman doona haduu Ilaahay yiraahdo adisa uu jooga diyaaraddu soo raaci doona aanu bari subaxii haduu Ilaahay yiraahdo marka aaska uu naga qayb gali doona wafdiganna dhulka hamaraan buu yiri marka team kanaan ku soconay waxaanu idinku nimina wax kala ma aha dib iyo dheef dad walaalo ah oo darisa maadaama aynu nahay dib iyo dheef inaynu wada qaybsano murugtiinuna waa murugtayada dhibkiinuna waa dhibkayaga marka tacsida inaan aaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee Somaliland inaanu idin la qaybsano in kala qayb gallo intaasaan u soconay isagana muxuu ahaayay Ilaahay naxariistiisa jannaha ka waraabiyaanu leenahay dawladda deegaanka Soomaalida waxaan idinka wadnaa tacsida inay ummadda iyo bulshada joogta ay idin la qaybsanayaan dhibkaas dadkuna waa dad wada walaalo ah oo daris ah inaan yaabtigiya marka de Soomaaliduna haday soo wada abtirsato waxa la yiri ama xaga maabtuun bay noqdaan ama ilmaadeerun bay noqdaan qaraaban qasabuun bay qaraaban qansaxun bay wada noqonayaan marka
waxaan idin leenahay dhibka dee geeridu waa xaq xaqana ilaahay baa keenay isagana ilaahay ha u naxariisto naxariistii jannaha waasaca ha siiyo annaguna inaan idinla qaybsanno intaasaan idinku mahadsantihiin